Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bariida iyo bogaadinka dib daawadayaal mee wada joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii ganacsiga. Maanta waxaynu ka hadlaynaa shirkadda Nike. Waa shirkadda ugu caansan adduunka isla markaana ugu weyn ee soo saarta agabka isboortiga ee la xidho. Kaliya 50 sano riyada hal nin ee ah in la helo kaba wanaagsan ayaa isu bedelay shirkad iskaashi oo caalami ah oo qiimaheedu yahay $100 bilyan. Maanta waxaynu dib u milicsanaynaa maalmihii ugu horreeyay ee shirkadda Nike si aynu u ogaano qaabka uu indhasarcaadkaasi u dhacay iyo waxyaalihii sararka u ahaa guushooda. Sanadkii 1962 Phil Knight waxa uu ka qalin jebiyey Stanford. Sida ka qalin jebiye kasta oo kuliyad ganacsi ku sheegi karo inaad noqoto qof hal abuur ganacsiyeed leh way adag tahay haddaanad haysanin fikrad fiican. Phil waxa uu haystay fikrad fiican. Waxa uu ahaa nin jaamacadda masaafo u soo socda ama u soo orda. Maalin ka mid ah maalmihiisii fasalka ganacsiga ayaa waxa uu qoray warqad uu ku gudbinayo aragtidan soo socod. Phil waxa uu arkay sida ay shirkadihii kamaradaha ee Jabaanuuska ay u bedeleen shirkadihii awoodda badnaa ee kamaradaha Jarmalka kuwaas oo ka caan ahaa suuqyada Mareykanka. Waxaana isaga u muuqatay in shirkadaha kabaha ee Jabaanuuska ay bedeli karaan shirkadaha caanka ah ee waqtigaas sida Adidas iyo Puma kuwaas oo ilaa xad caan ka ahaa suuqyada Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee taasi waa xaqiiqo. Haddaba haddaynu dib u jaleecno kadib markii uu Phil warqadda qoray ee uu qalin jebiyey. Phil waxa uu ku adkaystay aragtidiisii taasoo ahayd in kabaha Jabaanuuska ay iman karaan dalka Mareykanka. Mid aragtidiisa u sii xoojisay waxay ahayd kadib markii uu Mareykanka ku dhex arkay kaba Jabaaniisa kuwaasoo ay keeneen askartii Mareykanka ee Jabaan joogtay waqtigii uu Mareykanku Jabaan qabsaday dagaalkii labaad ee adduunka kadib. Phil waxa la gudboonaatay inuu xiriir la sameeyo shirkadda Jabaaniisa wuxuuna kala gorgortamay inay alaabtooda keenaan Mareykanka. Phil wax khibrada muu lahayn oo aan ka ahayn inuu hayay hami sare. November 1962 waxa uu duulay Jabaan isagoo dalxiisa waxa aanu bilaabay sahamin. Gudaha magaalada quruxda badan ee Kobe waxa uu ku arkay xafiiska kabihii uu ku arkay askartii dalkiis. Kabaha waxa lahayd shirkad la yiraahdo Onitsuka Tiger. Kabaha ay sameeyeen waxay ahaayeen xilliga kuwii uga tayada fiicnaa ilaa xad. Sidaa daraadeed Phil waxa uu ku qancay inuu kabaha dalkiisa u iibgeeyo. Waxa uuna qaban qaybiyay shir uu la gelayo madaxda sare ee shirkadda Onitsuka Tiger. Phil waxa uu isla goobta ku sameeyay magaca shirkadda oo ahaa PRS. waxaana dalbaday inuu noqdo qaybiyaha kabaha Onitsuka Tiger ee dalka Mareykanka. Phil waxa uu noqday madaxii qaybiyaha Onitsuka Tiger dalka Mareykanka. 1963 waxa soo gaaray dalabkiisii ugu horreeyay oo ahaa 12 kabood. Waanu iibiyay isagoo kula wareegay gaarigiisa. Sida cad farsamadaas may ahayn mid soconaysa sidaa darteed waxa uu aaday qofka kaliya ee uu ogaa inuu wax badan ka garanayo kabaha. Waxa uu ahaa tababarihiisii hore ee jaamacadda Oregon, Bill Bowerman. Markaas Bill waxa uu ahaa mid ka mid ah macallimiinta ugu caansan dalka Mareykanka. Xilligaana xaqiiqatan waxa uu tababaray ciyaartooy badan oo Olympiga. Aad ayuu soo dhaweeyay fikirka macallinkiisu. Bishii koobaad 1964 Phil iyo Bill waxay wada bilaabeen shaqada PRS mid kastaana waxa uu keenay maalgelin $500 waxayna dalbadeen 300 oo beer oo kaba halka beerkii walbaaba qiimihiisu ku fadhiyay $3.33. Safarkaasina waxa uu ku soo aaday bishii afraad 1964 waxaanu soo gabagaboobay 3 bilood gudahood. Sanadii koobaad shirkadda PRS waxay iibisay kaba qiimahoodu gaadhay $8,000. 1965 miisaaniyadda shirkaddu waxay gaadhay $20,000 wax yar kadib waxay magaalada Santa Monica ka furteen bakhaarkoodii u horreeyay. Phil waxa uu haystay qaybta fulinta halka Bill Bowerman haystay qaybta wax ka beddelka hal abuurka. Bill waxa uu ahaa ninka kaliya ee awooday inuu Mareykanka keeno mashruuca guculaynta ee loo yaqaan joogin. 1966 waxa uu qoray buug uu kaga hadlayo guculaynta kaasoo iibkiisu gaadhay $100 milyan oo nusxadood. Shirkadiisuna waxay noqotay midii ugu horreysay ee bilowday suuqaynta kabaha guculaynta. Bowerman waxa uu ahaa dhammaanba nin wax ka beddel ku sameeya kabaha safar kasta oo ka yimaada Onitsuka Tiger si uu u eego siday u sameeyeen. Waxaanu isku dayi jiray inuu horumarin ku sameeyo tusaale ahaan waxa uu ku dari jiray qayb ilaalin ah ama waxa uu isticmaali jiray walxo ka fudud waxyaalihii ay u isticmaaleen. Waxa uu si joogto ah ugu diri jiray Jabaan warqado uu kaga cabanayo farsamada kabaha. Wax ka beddelkaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah nashqadihii Bowerman oo kuwaas oo u horseeday shirkadda PRS nooca hal abuur ee kabaha Cortez. Cortez sida uu isagu ugu yeedhay waxay noqdeen mid ka mid ah iibkii koobaad ee ugu fiicnaa sanadkii 1968. Si aan shaki ku gadaanayn waxay u mahad celiyeen Olympicii 1968 lagu qabtay Mexico. PRS waxay iibisay 1969 kaba qiimahoodu gaadhay $300,000 laakiinse waxay la kulmeen dhib weyn. Cortez waxay ahayd mid guuleysatay laakiin nasiib darro may buuxin baahida suuqa. Safar kasta oo soo gaadhay waxay u iibinayeen si ka dhaqso badan sidii hore halka dhinaca
dhinaca kale Onitsuka Tiger ay u soo diraysay intii hore. Onitsuka waxay mudnaanta ka dhigaysay baahida waddankeeda Japan iyadoo hadhaaga u soo diraysay dalka Mareykanka. Phil iyo Bill waxa ay ogaayeen midaas siday u dabooli lahaayeen, waxayna qaadeen tallaabo ay kaga horumarayaan inay kaba ka sugaan Onitsuka Tiger, waxayna aqoonsadeen inay gacanta ku hayaan baahida suuqa, iyagoo heshiis hooseed la galay shirkado kale oo Japanese ah ka hor intaanu heshiiskoodii hore dhammaan. Phil waxa uu bilaabay inuu samaysto astaan iyo magac u gaar ah. mid ka mid ah shaqaalihiisii u horreeyay ayaa u soo bandhigay magaca Nike, halka calaamadda tigtana ay u samaysay arday jaamacadeed taasoo uu siiyey qiimo dhan $35. markii heshiiskii u dhexeeyay Onitsuka Tiger uu sidaa u dhammaaday, waxa ay u madax bannaanaadeen dalabaadkoodii. gebagabadii shirkadda Nike waa shirkad ku caanbaxday soo saarka agabka isboortiga taasoo dunida daafaheeda ku leh ku dhowaad 700 oo xarumood oo ka baxsan Mareykanka.